نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. xusna markii uu alle ku yiri ciisow waxaan kuu qaadi doonaa oo kor kugu soo dhigi doonaa xaggayaga waa samada sare oo kaa bariyeeli doonaa hadalka beenta ah in uu ciise yahay wiilka alle middaas oo ay yiraahdeen kuwa gaaloobay waxaan ka yeeli doonaa kuwa ku raacay adiga kuwa muwaaxidiin ah oo alle kaliya caabuda iyo kuwa ka sareeya kuwa gaaloobay ilaa iyo maalinta qiyaamaha dabadeed waxaad u soo noqon doontaan xaggayaga markaasaan idinku kala xukumi doonaa arrimihii aad isku khilaafi jirteen. sida laga soo wariyey ibnu cabbaas allaha ka raali noqday wuxuu yidhi markii alla doonay in ciise calayhi salaam uu kor u qaado ciise wuxuu u yimid asxaabtiisa oo guri ku sugnaa waxaa la sheegaa inay tiradooda ahayd 12 halka ay warin kale leedahay waxay ahaayeen 17 wuxuu ku yidhi ciise iyagii waxaa idinku jira kuwa igu gaaloobi doona 12 jeer kadib markii uu qofkaasi i rumeeyey dabadeed wuxuu ku yidhi haddaba kee baa qaadanaya muuqaalkayga oo kale oo diyaar u ah in la dilaa halkii aniga la iga dili lahaa oo gaaraya darajadayda oo kale. saawiil aad u daayaraa ayaa markiiba soo booda oo ku yidhi aniga markaasuu nebi ciise ku yidhi iska fariiso adigu isla su'aashii ayuu mar kale ciise weydiiyey raggii waxaa mar kale soo booday isla wiilkii kolkaasuu ku yidhi haddaba waa adiga markaasuu alla weyne u ekeysiyey ciise wiilkii ciisena calayhi salaam waxaa loo qaaday xagga sare ee samaawaadka ah isaga oo laga saaray saqafka kore gurigii uu ku jiray. muddo yar kadib yuhuuddii doonaysay inay dilaan nebi ciise calayhi salaam ayaa gurigii yimid waxay markiiba gacanta ku dhigeen wiilkii loo ekeysiyey nebi ciise kadibna waa ay dileen oo daldaleen. warin kale ayaa waxay leedahay alle wuxuu ciise u ekeysiyey intii guriga kula sugnayd oo dhan saa markii yuhuudda ay yimaadeen gurigii waa ay ku wareereen waxay ku dhaheen dhammaantiin wayna idin wada laynaynaa haddii kale iska soo saara ciise saa nebi ciise ayaa ku yidhi asxaabtiisa yaa ka iibsanaya goob ama meel ka mid ah jannada waxaa markiiba u baxay mid ka mid ah raggii halkaas joogay ayaga oo dilay kadibna daldalay. intaas kadib waxaa la sheegaa inay u kala baxeen 3 koox la yiraahdo yacquubiya oo rumaysnaa inuu ciise isaga laf ahaantiisu ahaa alle oo uu dhex joogay intii uu doonay dabadeedna uu dib ugu laabtay hawada sare. koox kale oo la yiraahdo nastuuriya waxay rumaysnaayeen inuu ahaa wiilkii alle oo uu la joogay intii uu doonay dabadeedna uu dib ugu laabtay hawada sare. laakiin kooxda saddexaad waxay ahaayeen mu'miniin waxay yiraahdeen wuxuu ahaa adoonka alle iyo rasuulkiisa ee uu la joogay intii uu alle qadaray dabadeedna uu rabbigiisa kor u qaaday. intaas kadib labadii kooxood ee gaalada ahaa waxay isugu tageen kooxdii muslimiinta ahayd iyaga oo wada laayay markaasay diinta saxda ahayd ee islaamka ahayd ee uu baray ciise calayhi salaam baaba'day ilaa uu alla soo diray nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam oo dib u soo nooleysiyey diinta saxda ahayd. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله
وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم hadalkoodii ahaa kibirka iyo faanka oo ay ku dhaheen waxaynu dilnay masiixa ciise wiilka maryam rasuulka alleh calayhi salaam laakiin ma aysan dilin mana daldalin ee suuradda ciise baa waxaa loo saaray nin kale oo loo shaabahay ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ayagu gaaladu waa yuhuudda ee wax bay qooleen yacni inay dilaan ciise calayhi salaam allana qorshe ayuu samaystay sidaasi oo kale allana waa kan u wanaagsan inta wax qorshaysa نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين القصص النبوي qisooyinka nebiyada